وسلاما على عباده الذين اصطفى والصلاة التامة والسلام على محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه شمس الدجى وأنوار الهدى وعلى من سار على نهج منهج الهدى. أما بعد، الله سبحانه وتعالى wuxuu noo soo dejiyey quraanka wuxuu ilaahay u soo dejiyey saamar walba sheegno in qofka uu ku tadabburo inuu qofka fahmo inuu macaani badan uu ka dhuuxo sida u malayna maaha inuu qofka uu yani la saaro la isku akhriyo oo ma taqaan quraanka la iska barakaysto oo guriga sidii diikoorka loo dhigto maaha qof inuu akhriyo bal waxa dalaa'il macaani ku jiro ogaado waxa ummadda maanta haysto oo faham khaldan ah oo diinta ka haysto ama ilaahayba ka haystaba waxa maanta dadka haysto mashaakilka haysto dhan waxay tahay macnaheedu quraanka ma fahamsan si fiican uma aqrin karaan wuxuu ku qasban yahay marka qofka inuu qof walba wixii uu sheego diin ku tilmaamo oo diin kale iskala boodo maadaama uusan xariir lahayn kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka qof walba inuu xil iska saaro soo ku fahmi lahaa oo ku baran lahaa oo macnaheedu ku dhuuxi lahaa waxa jira ikhwaani fillah mar walba waxa laga sheekeeyaa oo dadka aad u maqlaan dad leeyahay banu Israa'iil ama reer bani Israa'iil ama leeyahay yahuud ama oo dhibaato ay ku dhacday oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uqubaad badan kala kulmay zamanadooda intay noolaayeen iyo ummado ka horeeyay dadkaas oo sidaas oo kale iyagana dhibaatooyin iyo waxyaabo badan ay ku dhaceen waxa jira asbaabo badan qofka markii la yiraahdo marka laga hadlayo bani Israa'iil dadka qaar waxay u maleeyaan in jinsiga ay yihiin iyo dadka ay yihiin iyo meeshii ka soo jeedaan iyo nasab ahaantooda ay tahay waxa lacnada iyo dhibaatada iyo waxa ay u daba socoto sida maaha waa sifooyin ruux walba sifooyinka la yimaada marka ama ku dhaqma ama isku sifeeye wuxuu soo galay khaanadaas dulmiga ruuxi khaanada dulmiga soo galana ciqaabkii dulmiga uu kala kulmi lahaa uu kala kulmaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay cadaalada kawnka Ilaahay ugu talagalay waxa horu soo sheegnay dunuubta iyo macaasida dadka ay galaan waa laba nooc dambi macsi Ilaahay ka galis oo Ilaahay kugu la xisaabtamay haduu doono Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku cafiyo haduu doono ku qabsado iyo dambi dadka makhluuqa noolaha aad ka galisid مخلوق وليه بني آدم كليه معنا طبيعة أكجلسيد وأكجلسيد محوها إن حيوان كأكجلسيد والجمال إلهي سبحانه وتعالى وأبوري أكجلسيد وبني آدم كأكجلسيد ذنوب تمركة مخلوقات كأكجلسيد معها ذنوب دبل صوري كليه والذنوب عقاب كده قف كسي مباشرة أو دينه كله لأن قانون كإلهي سبحانه وتعالى سياسة ذنب الجلسيد وذات كأكجلسيد عقوبة الدنيا كلها آخر كليه معه وحاجة مركز سفوين بدل oo dadkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay horuso durka barkada sifooyinka marka lagu tilmaamay bani Israa'iil looga hadlay ama lagu tilmaamay ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay in lagu kasbanayo dullinimo iyo in lagu kasbanayo dhibaato iyo in lagu kasbanayo muxuu ahaa ciqaab sifooyin badan marka u fiirsaday sifooyinkaas quraan ku soo arooray waxay soo baxay taqriiban ilaa 13 sifo ka sifo hadii la isku celiyo 10 sifo laga dhigo waxa cajiib oo yaab leh 10 ka sifo ee qofka Soomaaliga markuu quraanka akhrinayo isleeyahay dad hore laga sheekeynaa in isaga toos u taabato noloshiisa qof walba noloshiisa ay taabatana way ka soo baxaysaa uqubadeeda sifooyinka marka aan ka simanahay dadkii reer bani Israa'iil ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay wadribat alayhim dhilla wal maskana iyo annagaan boqol maalin wal muslimiin aan ku dirina sifooyinka naga dhaxay maxay oo dadka lagu haligay sifooyinka waxa kamid ah isqabasho la'aan qof dulmi galay ama macaasi kala dib galay qof qabanaya mana sheegay dulmigiyo macaasida kala ah dulmiga macaasida markii laga hadlayo Soomaalida laga hadlayo ma aha kaliya meeshana muxuu ahaa xaflad ay ku dhigteen halaga qabtay iyo meeshana kada ay halaga qabtay inkan halala hadlama tukaday inkan waxas ma aha iyadoo waxaas dhan ay jiraan oo dambi ay yihiin waxaas wax ka sii daran oo ka weyn jiro oo Ilaahay in uu kufriyo waxa ku xiga oo ah in dad bani aadam la dilo naftooda la gooyo waxa jira qof bani aadam in la dilo oo naftiisa la gooyo waa kabaa'irta ugu waaweyn waa dunuubta laakiin waxa u moodaa dadkeena way ku badatay inaysan dambi u malayn oo macsibaysan lahayn ذنوبتا سفوينكاس او صفada ay ugu horeyso isqabasho la'aanta oo qof dhihi kara uu san jirin qofkan uu khaldan yahay ama waa qaatil ama waa zaalim ama waa kada waa sababihi rabbi sallallahu alayhi kamid Soomaaliduna ogtiin wax ka halaabo ma laha qof ka xumaadana ma laha mujrimkooda iyo saalixooda kooda xulin kooda fiican waa isku si
isku si wala macaamila qof waxa arkaysa ummad oo dhan baabi'iyay wax uu reebay aan jirin iska xargoonaya haddana iska socdo la amaanayo waliba oo la sii difaacay haddana haddii marka mujtamaca mustawahaas gaaro sifooyinka waxyaabaha uu kasbanaya waa wixii dulligii iyo maskiinnimadii reer bani israa'iil ilaahi subxaanahu watacaala uu dul saaray sanooyinka badan waxaa ka mid ah sifooyinkaas in la soo muujiyo midnimo meel walba laga hadlo midnimo lagu qayliyo oo laga gabayo laga tiriyo oo heeso laga tiriyo oo la is-oysiiyo marka la hadlayo laakiin xaqiiqadana midnimo aysan jirin wuxuu ilaahi subxaanahu watacaala yidhi ba'suhum baynahum shadiid reer bani israa'iil markuu ka hadlayay ba'siga iyo dhibaatada dhex taallo iyaga dhexdooda waa mid aad u daran ilaahay wuxuu ilaahay ku tilmaamay inay daran yihiin ka hor taxsabuhum jamiican laakiin adiga nabi maxamed kor markaa ka soo fiirisid waxaa u malaynaysaa dad midaysan inay yihiin xafladooda markaa tagtid waxaa isleedahay maasha allah tabaaraka allah dad aad u midaysan laakiin wax ka jira male midnimadaas kulli nin walba waxbuu mataqana waxbaa ka dhex guuxayo qabyaalad dulmi kale baas kale waxyaaba waxaan aniga helin yaan la helin wix haddaa aniga ii socwaay cidnaysan u socon waxaasoo وصفوينك رب الإسرائيل إلهي وكل عمدهم بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى صفات السدحات حيتها هي بلان والبا إلا بريو وحوال بولسكو أغادو إلا قد تخلص ولا شيريا ولا شيء معنا أحباب ميلا ديغانا ولا قروبا كبحا يحيلي وحي وحبك مجران وحكا سعونا ملا ووحي إلهي سبحانه وتعالى كتل مامن وربنا إلهي سبحانه وتعالى وكتل مامي وصفوينك الوهلا جيني تاينا وإلهي جل وعلا ونوشيك كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم مروا بيبلن قلان جروب ايه كم اذا بلنت كبحا او يحبري صفات فرض وحيت هاي وحولها كنت مع مريب اسرائيل الى بنت ادو دغستان بنت ادو دغستانيين وحولها كنت مع مشيده سكر في نفس الايه حاران تنين ادعونا اما بزنس كود حاران كوديسا اما خولها ددك si toos mubashir ha u dhaco qofka ama si xeeladaysan ha ku qaato ama mataqana si nidaam iyo dawlad iyo mataqana isagoo salaaxiyad dawladeed haysto habbo dadka xoolahoodii ka dhaxeeyay habbo suudan ha uga qaato ama wax aan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu san raali ka hayno soo dejin intuu dadka uu ku fardiyo wuxuu ha qaato soo uga qaato sidaas oo kale inuu dhagtiisa ay u taagnaato kaliya qof inuu been dhageysto runta bay sanaaficin وسربين بقى حقائق وسنفيرين بين كل يوم دقيست واحد يعني جركا وكجر رعانا قف كيلو مناج كده تنو دقيست مالي والله إذا عادها عركتين وقلالك واحد لو سوق قراي عركتين وفسديدا واحد ما تقع المعلومة بلغي شيكين عركتين أو لقي يا بدأ دقيستي واحد عنده كار دوربر عن كل عليي وحنا مجتمع آد وإنفورميشن كيسي معلومات كيسي أبدين آد وحقوم لنا مجتمعات ومعلومات كبدلين عنها لكن واحد كحماي سجال بقول كذا وكتر كتير حركة مجرى markiina macluumaad inta lay aruusatido hadana ay been wada noqdaan ka hor oo waxaan asal iraad lahayn ay noqdaan oo meel loo raacdo baan ahayn wasifooyinkaas marka samaacuna ilkadi wali inuu qofku u qasdo way dhageystaa kaliya ma aha ina been maqashid xataa ma wax laga hadlay samaacuun waa aad ay u dhageystaan akaaluun sidaas oo kale waaba dabeecadooda xaraan nacun waxa saxahayn imaamka insixaana aan saxahayn loo qaato sifooyinka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku halayo waxa kamid ah dadka wax galka wax tarka in la dilo wuxuu ilaahay ku tilmaamay reer bani israa'iil inay anbiyada ilaahay soo diri jireen yaqtuluna al-anbiya bighayri haqq anbiyada ilaahay dilayaan wax mubarrira oo xaq aysan jirin ee anbiyada dilayaan dilitaanka anbiyada waxa garab socda dadka ahlu cilmiga nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam noo sheegay qofka caalimka dadka ahlu cilmiga inay dhaxlaan anbiyada inay dhaxlaan qof walba oo wax tar leh هلا دلو قفك وحي قالنا هلا دلو قفك وناكسن أو صالحا هلا دلو وحاكروا الدلو يا إله سبحانه وتعالى شيء أهل القسط قفل وعدالة كهذا عدالة قفك هذا شيء هلا دلو قسط جوا وحول بوناكسن أو دفك النفع وجره قفك صوب إنه ما كهذا لا أما لا عارفينه كهذا لا هلا خارجي وحكسه جدا هبل أما متقنا هجامي هبل أما كذا هبل وكسه جدا معركم فريق قفك هلا دلو نرش على بابي sifooyinkii ay kasbadeen reer bani israa'iil uu halaagay kamid tahay taas waa ogtihiin meeshan ka joog Soomaaliya la dilaaba horta yaa la dilaa Soomaaliya markii la joogo waxa la dilaa dadka wax tarka la dilaa waxa la dilaa dadka aqoonta leh waxa la dilaa dadka dhakhaatiirta waxa la dilaa dadka mujtamac horumarkiisa indhihiisa la dilaa waxa la yiraahdaa reer hebel waxa laga dilaa hebel wani kugu fiican ugu aqoonta badan ugu akhyarsan reer hebel laga dilaa
waxaan ka maqlaa odayaasha qaar in mararka qaar lagu celceliyo waxaa la yidhahdaa odayaasha xataa waxay dhahaan ilmahayga hebela laga dilaa ka ugu jeceliyo caruurteedu waxaa laga dilaa ku leeyahay hebel fulaan musiibo weyn waa marka mujtamaca meeshaas gaaro oo wanaaga kaliya inay dilaan ay usoo dhigtaan waxba ma dhaamaan waa sifooyinka reer bani israa'iil lagu helayo sifada kale waa ballan walbo in laga baxo yani mawaafiiqda ilaahay uu dejiyo dhan in laga baxo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay ballan walbo inay markay ballan galaan qaar kale ay ka baxayeen khilaaf iyo tafaruq aan dhammaanayn walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu waxaa laga hadlaya reer bani israa'iil dadow ha noqonina sida kuwa iskhilaafay oo kala tegey ha noqonina sidii waa manhajkii iskhilaafkii kala tegi oo aan dabiicad ka dhiganay oo manhaj ka dhiganay oo nolol aan ka dhiganay xaq cad in la radiyo oo la diido sifooyinka lagu halaago reer bani israa'iil wax inay u jeedaan yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaahum ilahi ku tilmaam waxay u yaqaanaan ugu jeedaan xaqa sida awlaadooda u yaqaanaan maca dalik qofkii uu diidaya xaqii waxaa ka mid ah sifada sagaalaad oo ilaahay uu ku halaagay reer bani israa'iil oo annagana dabeecad noo noqotay waxay tahay kibir iyo isla weyni xataa inaad kibirtid bal horta kuu gaarto qofka markuu xoogaa u gaarto waa kibraaba laakiin inaan kibirno annaga meel ay noo taagan tahay ma laha inaan kibirno qof inuu isla weynaado isla kibro wuxuu iskula weyn yahay inuu reer hebel yahay oo cid taqaanana ma jirta wuxuu yahay wuxuu iskula weyn yahay waxaadan la ogeynba waxaan la ogeyn iskula nin baxay oo xafiiska ceerta tagay oo fayl ku jira oo sugayo inuu gabar la kulmo mataqaanaa si ay ugu soo qorto wixii luqmadii cuni lahaa oo haddana labisano isla weyn cirkaas isla maray markuu waddada socdaa is leedahay buuruhu gaari rabaa ruuxaan dhulku jabin rabaa isla weynigiisana waxba aysan ka jirin wax walbana aakhiro ku xawilaya waa sifooyinka reer bani israa'iil wax walba xataa dadku waxay ugu faani jireen inay aakhiro marka la tagay ayaga kaliya jannada ay geli doonaan oo iyaga ahlu janno yihiin oo dadka kale oo dhan ahlu naar yihiin waa sifooyinka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka sheekeeyey uu kaga hadlay waxay yidhahdeen waqaaluu lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara janno man kala ilaa ruux yahuudiya macan sifooyinka waxaa sifada shanaad ay tahay oo sifada ugu cajiibsanna ay tahay qofka inuu xalaal ka dhigo wixii dhaqankiisa odayadiisa ay xalaalayaan oo xaaraan ka dhigo wixii odayadiisa xaaraan ka dhigaan uusan miisaan sharci iyo diin iyo caqli iyo wax kaleba u fiirinba wuxuu ilaahi subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay arrintaas ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illah wadaadadooda iyo odayadooda waxay ka dhigteen ilaah ka sokeeyo nin saxaabi oo la yidhahdo cadiy ibni xaatim nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow oo dadkii horena oo jaahiliyada ku weynaaday aayaddan wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow waxaan ka qabaa war nabiga wuxuu yidhi maxaa ka qabta aayad wuxuu yidhi waxaan ogahay aniga intaan ahaa weli intaanan muslim noqon ka hor dadkaan ha ka sheekeynaysa weligeen ma caabudin arrin weyn waa arrintaas cibaadada isaga waa in loo sujuudo loo rukuuca qofka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma ahaydeen kuwa wixii ay soo gooyaan xalaali xaaraan qaatan haa uu rasuulka ilaahay tilka cibaadatum iyaahum cibaado laga hadlay maxay tiri marka yani marxalada uluhiyada muxuu ilaahay uga duwan yahay makhluuqiisa amarkiisa inuu amar yahay wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala sheegay inay jiraan oo xaq yihiin oo amarkiisu amar yahay wuxuu farana la qaato wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala nahiin laga leexo haddii marka oday ama siyaasi ama qof wuxuu ku fara qaadatid inda la'aan wuxuu ka reebana ka tagtid inda la'aan adoon wax kale u fiirin aqligaada xukumin shariicada aan fiirin diinta aan fiirin qawaaniin kale aan fiirin hadda iskala boodid oo ku dagaaltagtid soo qof caabuday ma aha marka suu nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam tilka cibaadatum iyaahu cibaadada caabudeen inay u sujuudeen u rukuucdeen maahane waa wax walbo idin faraan oo xaraaman inay xalaal ka dhigateen waxay idinka nahiyaan ay idin diidaan oo xalaal ahna inaan diideen anaga reer hebel haddana waan ka caaganahay laftaan ma cunno iyo hilibkaan ma cunno iyo kadaa ma cunno iyo intee laga keenay wuxuu ilaahay xalaaleeyey wuxuu leeyahay waa ma socona reer hebel haddana wuxuu leeyahay reer hebel isma guursan isma dhexgal reer hebel haddaan nahay sidaasaan nahay yaa kuu sheegay waxaas oo dhan waa ashyaa ma anzala allah biha min sultaan wax ka jiraysan jirin sifooyinka marka ikhwaani fillah tobanka ah biikhtisaar qofkii marka sifooyinka ama duulkii laga helo waa inay meel weyn ku qortaan waxa ay sugayaan waa waduribat calayhim الذلة والمسكنة وحال الدول سارة
dullinimo iyo maskiinnimo daciiftinimo adduunka oo dhan waxaa ku aanaysaa daciif maskiin ah oo daliil ah oo dullaysan dharkaa rabti xiro bangigaaga intaad dunto lacag kugu jirto طالما aad ka soo jeedid wadan liida Soomaaliya arintaas kugu soconayso qof walba qaanuunkaas ku marsiin waa qaanuun ilaahay sunna oo min sunan al-kawn kamida ilaahay u dajiyay nidaamka nolosha hadii qofku saas uga leexdo inuu saas maray jidkaas u maray marka qof walba waxa waajib ku ah inuu iska ilaaliyo waxa laga sheekeynaa dad hore maaha bani Israa'iil hore maaha qawaacid quraanka in nusuusta waxa kamida usul tafsir والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قرآنك عبر كيسة وعام dadka oo dhan iyo dadka imaan doonaan ku socda sababta cid ay ku soo dirtay ama laga sheekeynay shaqo kuma lid laakiin adiga maxaa kugu socda taasina qofka fikiro ala sallu wa sallimu ala nabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد